kooxda Chelsea waxa ay ciyaar barbardhac la soo gashay naadiga Crystal Palace kaas oo guriga Chelsea lagu ciyaarayay Stamford Bridge. hase ahaatee kulanku wuxuu ahaa kulan xiiso badan. Chelsea ayaa goosha la hormartay, Palmer ayaa caawiyay, Jacksonna waa uu dhaliyay daqiiqadii 25aad. hase ahaatee Crystal Palace daqiiqadii 53aad waxay awood u yeelatay inay ciyaarta ku soo celiso 1-1, taas oo markii dambena ay isku dayday Chelsea inay ciyaarta u saarto Crystal Palace way u suurtagali weyday. Chelsea waxa ay ku soo badisay kulankii hore 6 gool, taas oo aan xilli ciyaareedkan cusub aanay cidi ku badin. awood cad ayay muujisay, saan isku lahayn Chelsea way soo laabatay oo kulankii hore ayay 6 ku soo badisay. hase ahaatee waxay maanta ku dul kuftay kooxda Crystal Palace taas oo ciyaar 1-1 la soo gashay. Crystal Palace waxay heshay dibacdii ugu horeysay ee Premier League xilli ciyaareedkan cusub wareegii 3aad. haddaan intaas Chelsea iyo Crystal Palace kaga gudubno, waxaa soo ciyaaray Tottenham iyo Newcastle. Tottenham galabtii waa laga soo badiyay, taasoo ciyaar 1-2 looga badiyay. Newcastle-na waxay cadaysay koox awood leh inay tahay. Hambalyo Newcastle, muuqaalkaygan hadduu ku soo gaaray, waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biirto YouTube-keenan iyo TikTok-keenan. dhammaantiin waa mahadsantihiin. magacaygu waa Billy Sports.